villa Soomaaliya lagu shiri jiray inta la isku yimaado nimankan hadda xalana degan madaxweynaha gurigiisa inta u tagaan la cashay jireen la quraac jireen meesha lagu shiri jiray qaladaad uu madaxweynaha sameeyay maanta waxay keentay meel uu jooga ma tagayna in la dhaho xalana dhexdiisa teendhada dhexdeeda maanta la isugu imaado waa la isku imaa waaye beesha caalamka dadka isku soo jiijiiday waa la isu keenay asaa sheegto waa dhahay anaa dadka u yeeray waa u yeeri waaye dadka waa u yeeri waaye waa isu keeni waaye waa la isu keenay dadkii nin inkaaranoo dubbe la yiraahdo warqad intuu usoo dhiibo dhahay sii day anaa keena dheh warqadaa laga soo daba saaray laleeyahay beentiis waaye beesha caalamka waxaas ma sharafa ma karaama war isuguma kaan yeerin beentiis waaye beesha caalamka isugu kan yeertaa la dhowaa maanta taladeyda oo marka warka inuu kusoo gunaado rabo waa maxamed cabdullaahi farmaajo villa Soomaaliya lagu shiraay dadka asaa ka soo eriyey saca geesaha weyna loda geedka harka waa ka bixiyaa markay lodu ka baxda harka asna waa daba kacaa liin villadu dadka ka soo bixi horta waa soo daba kacay teendhadii afisooru maanta la fadhiya waxaan leenahay maxamedow maantay wili talo kugu sugan tahay geedda teendhada afisoonayay dhaafin biri kambaalaha ka jirin jabuuti ha ka jirin addis ababa meel kale ha ka jirin maantay wili talo kula habboon tahay teendhada afasyoone dhexdeeda maanta inta la joogo war meeshaas caana hele ku haki geedda ku celi meeshaas wax ku qabo berri haddii kale waxaa laga doonaa kambaala iyadoo diyaarada loo sii saaran yahay oo la sii dhuraaya la arkaa leanna waa sidaas automatic waa talada ugu dambeysa aan siinaa ninkaas odaga waa sidaas